الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalaha dhammaan soo dhawaada waa barnaamijkeeni ka faa'iideyso walaalka adna u faa'iidee waa barnaamijkii Somali Women's Empowerment and Organizing Services ay ugu talagaleen inay la wadaagaan bulshada Soomaaliyeed dhammaan meel kasta oo ay joogaan si aan uga kabsano dhibaatooyinka jira awgeed waxay tahay inaan isbaraarujino isuna sheegno waxyaalaha aan isleenahay bulshada way u faa'iideynaysaa wixii naga qaldan si aan isaga saxno aan ula jaan qaadno bulshadan aan ku dhex noolnahay maanta anagoo kasoo firdhoonay wadankeeniina rag garasho leh ilaahay ha nagu soo dabaalo caruurtana allah ha nooga save gareeyo dhibaatooyinka maanta jirto hadday noqon lahayd tii wadanka iyo hadday noqon lahayd tan wadamada aan usoo qaxnay nagu haysato hooyada Soomaaliyeed waa mar walbaba dhibaatadu ay aad u saameyso hadday noqon lahayd tan uga imaanaysa ninkeeda ama tan culayska caruurta ama ay ahaan lahayd tan magaciisa wakadalika rag ayaa jira iyagana dhibaatadu ay dhinacooda ka haysato marka waxaan u galeynaa macnaha guud ee abuse-ku hore ayaan uga soo sheekeynay abuse-ku qaybo badan yahay qaybihiisana waan soo sharaxnay laakiin hadda abuse-ku muxuu dhimaa iyuusan wax u dhimaa abuse-ku waxa uu wax u dhimaa qof kasta ay dhibaatadaasi saameysay oo dhibaato loo geystay dhibaatadaas mid joogta ah hadday noqon lahayd caruur iyo hadday noqon lahayd qof weyn oo da-weyn isagana waxba iska celin karin hadday noqon lahayd laba qof oo isqabta siiba haweenku mar walba way u nugul yihiin inkastoo ragga qaarkoodna qabsato haddana maxaa dhaco marka abuse-ku qofka uu qabsado ama uu ku raago ama uusan helin xal waxaa jira wadamadan aan usoo qaxnay family mediation wax la dhaho waxaa jiro social serviceska naftirkooda waxay u joogaan inay caawiyaan faamilada markay dhibaatadu soo kala dhex gasho waxaa jiro qolyo loo refer gareeyo oo la yiraahdo family mediators kuwaasoo qaylada iyo buuqa meeshay ka imaanaysa labada dhinacba cidi daawo u baahan iyo cidi counseling u baahan labadaba ku caawisa kuwaasna inaan ka faa'iideysano ayaa wanaagsan hadiiba mar ay soo gasho shaqaaqo bayna zawjayn waxaa fiican in la damiyo faamiladu qayb weyn ayay ka qaadan karaan iyo ehelkooda inay damiyaan dabkaas markuu bilowdo laakiin faamiladii qaarkood ayaad arkaysaa inay subxaan allah ay dabkii sii hurinayaan oo ayaga ay basiin u yihiin gabadhayda wiilkayga hebelow qofba dhinacoo lasoo safanaya meeshaana big conflict oo familka affect garayso labada qofooda israbtayna isu qaraaraysa ayaa imaan karto marka ilaahay sidoo subxaanahu watacaala uu sheegay haddii inshiqaaq dhacana wuxuu yiri labada dhinac laga qaato ummadan kalaaba nooga dhaqan ogo hadda ninka separate inta isku sharciga wadanka isku qabtiin oo tiraahdo ninkan waa iska furaya 3 sano oo separation inaa ku kala noolaatiin markaas kadib aad go-aan gaartiin aa laydin siinaa laakiin annaga maku dhibtay faraha ka saar dalaaqadeeda hooyadii aabiya horboodayo dadkina ma naqaano wax dhacay laakiin dhaqankeeni kaas maaha gabadha iyo wiilku labadaba xaq ayay isku leeyihiin laakiin mar walba waxaad u malaysaa in gabadha loo kulul yahay dhibaatada ugu badan ay gabadha haysato wiilka gabadhi caawa markii lagu mehriyo shaar cusub uu la soo baxaa faamilkii wiilka ka dhashayna xoogaa shaarardha ayaga ka waaweynay soo gashana laakiin saas ma aha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay yiri in naxariis iyo kalgacayl ma ka cusubtii hore uu gabadha loo qabay oo lagu soo doontay inay meeshaas ka bilaabato gabadhuna iyada mar walbaba waa hambal gabdhaheenu waxay u taagan yihiin in guurkaas wanaagsanaado ay horumar iyo natiijo ka gaarto laakiin wiilasha Soomaaliyeed ayaa waxaa la rabaa inay ka go'an tahay qayru mas'uulnimada ugu badan mas'uuliyad xumada ugu badan hadda waxay ka qabsatay raggi inkastoo haween qayru mas'uul iyagana jiraan waxaan codsanaynaa balse ciyaalka uga nabad galaan ciyaalka maxaa problemyadan haysta marka maxaa kamid ah oo abuse-ku keeno abuse-ku wuxuu affect gareeyaa maskaxda qofka
wuxuu keenaa dementia cudur la yiraahdo oo ilowsho qofkii maskaxdaaba ka tirtirmayso. Gabaraan hadda maqlay ayaan dacwoonayso oo Hana Abuukar la hadlaysay oo dhahayso gabadhiisa isaga socotay iska maahsan tahay gabadhii waxba ma garanayso. waa run waa cudur dementia la dhaho. Dementiadana waa qayb maskaxda ka mid ah oo ka memoriga qofka ayaa baaba'aya haddii maalin kasta handadaad iyo dhibaato iyo buuq joogto ah qoftii ay aaminto nolosheeda u dhiibto uu u geysto. gabar yahay mar walba muraayada aad isku fiiriso xanuunka markaas jiro ha ka ooyin, laakiin who you are u sheeg nafsadaada. gabar qurux badan, qiimo badan, sharaf badan, ehel iyo asxaab haysato loo baahan yahay, baahidaas darteed loo soo doontay. taasaa la rabaa inaad iska dhaadhiciso markaa muraayada hor istaagto. ninkaana calafa isu kingeeyay, balse ma aha inuu ku cadaabo, waa inuu nolosha ugu macaan ugu quruxda badan iyo happiness kula qaato. hadduusan kula qaadan karinina khayru malyan, yacni wax kala buuxo iyo ku dhibin ilaa iyo heer dementiada iyo alzheimerska iyo cudurada dhibaateeya maskaxda iyo mental illnesska gabdhaheena isbitaalada kala buuxaan. wiilasha qaar u geystay, wiilasha qaarna waad arkaysaa inay wiilashii fiicnaa gabdhaha qaar iyagana ay dhibaatada u geysteen, ama cagsi ayaa loo fikirayo wiilashii waxay aaminsan yihiin inay sidii aabayaashood ku dhaqmi jireen ku dhaqmaan. yes, markaad adigu faamilka mas-uuliyadiisa qaaday waa inaad kasoo muuqataa walaalkayow. banaanka ha istaagin oo dubnad iyo hebelo iyo sheeko iyo ha ku mashquulin. shaqada markaasoo dhammaysa gabadhii u imo, dhinac istaag, caruurtaada waqti sii. ma arag hadda aabba Soomaaliyeed oo caruurtiisa waqti siinayo. aabayaasha kale waxaad arkaysaa marka swimming poolka caruurta geysto kale aabbaa kula dhex jiro oo ilmihii ciyaarsiinayo, biyihii banooni kula dhex ciyaarayo. weynakum intee xaggee aadeen raggii Soomaaliyeed kii la dooxay aadba kor istaagi la-dahayn oo aakhir xayaati aad idinku horseedaan. waa ilmaha Yurub ma dhalin, adaa dhashay. use family planning haddii aadan awoodin inaad ilmaha aad dhashay korsato. haddii aad rabto inaad gabadhan masaakiinta ah ku dhibtaan, amaam Allah cadaab iyo ciqaab ayaa ku yaalo. guurkana sharcigiisa kama aadan soo bixin. saameyn intee la eg ayay ku yeelataa marka caruurta. dhibaatada labada waalid soo dhex gasho saameyn aad iyo aad iyo aad u ballaaran ayay caruurta maskaxdooda u geysataa. ilmahana macalimiintu way fahmaan oo waxyaalo badan, symptoms badan ayaa lagu gartaa in ilmahaas gurigiisa ay dhibaata ka jirto. markaasna ilmihii ayaa la wareystaa. social services qolyaha la dhahana waa qolyo adiga haddaa dhibanta oo ninka ku dhibo waa kuu gargaaraan. cunuga haddaa adi dhibtan cunugii u gargaareen. haddaa hooyadaa waayeela aad dhibtan hooyadii u gargaareen. haddii adiga naagtaada ku dhibtan aday kuu gargaareen. social services, social care aa lahaa, waxay keergarayaan bulshada qofkii dhiban ayayna u gargaaraan. wax kale ma sameeyaan. ilmaha la qaadanayana waan ka hadli doonaa insha Allah xalaqadaheena soo socdo. laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa maxaa faamilada abuse-ku uu u dhimaa. abuse-ku waa tafaraaruqiye, waa dhibaateeye, waa xanuunjiye, waa xumeeye, waa maskaxda qofka bini aadamka ah ayuu caqabad ku yahay inay horumarto. caruurtan masaakiinta ah oo qariska tuurka ahna waa in bal si fiican aan u focus garaynaa. intii hore way nagu dhacday, laakiin inta dambe waa inaan ka fikirnaa. raggan isriixayo maanta magaaladii gubayo, idinkana waxaa qaldan oo maskaxdiina ka guuxayo waa qabiil. hadda waxaan arkaya madaxweynihii oo ninkii oo criminal record ka haystay isku soo sawirayo. I don't know why. ninkii oo crime-ka ka galay wadankii oo dad ku xasuuqay xiliyadii dowladdii waxa xasuuqaysay. nin waxa xasuuqoo tuka la yiraahdo ayuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo picture la soo galay. meeshaas inta ka dambeysana rajadayda aad iyo aad iyo aad ayay uga xumaatay. maanta iyo maalintii la doortay inta ka dhaxlana qaskiisa waa badan yahay. walaalow waxaan ku leenahay horumar iyo barwaaqo, baahidood daweyso iyo bukaanko ood u gargaarto, iyo bilicda wadanka iyo sharaftii Soomaaliyeed soo celisaan kuu dooranay. if you cannot
do it please. Wadanka adi malihid, just resign and leave the office please. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa sameynaysid waa khalad, waa isku dir, waa Soomaali dib inay isu dagaasho, symptomskeeda wadanka ka muuqdo. Waxaan ku leenahay walaalo please haddaadan waxba wadi karin ka tag, haddaa wadi kartidna khayrka iyo wanaaga ila wax yaraa joogaysa adiga dhanba dunida wax kaaga harqab iska yar. Dunida bari inaad sii gaaraysid ma ogid, laakiin markaad dhalata iyo markaad dhimanaysa inta ka dhexle xilliga garashadaadu ay fiican tahay ku jirtaa, ka faa'iidaysa waqtigaaga, ummadan wax fiican u sameey. Axmed Madoobe lama dooro kara hadhihin dadkii aan rabo u ogolaaw daah. Puntland waa daysay, waxa Axmed Madoobe u daylaadahaa nima aqaano. Wax badanaa lagaa sheegay, laakiin ani inta ma rabi inaan sii galo abuse ka daa ummadda Soomaaliyeed. Adna abuser-nimada wax fiican ma aha, qabyaaladuna waa qurun, meeshana loogama baahna. xilligan Soomaali inay isku timaada u baahannahay. Wamaa tawfiiqina ilaa billah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.